kulanka quruxda badan leh maanta aan soo afjarnay waxay noo suura galiyay hay'adda la yiraahdo Forum Sud mashruuca la yiraahdo SSP oo ka dhigan Swedish Somali Business Program ujeedadu wax kale ma ahayna waxa ahayd kobcinta dhaqaale ee shirkadahan waxaan ku tababarnay marketing, finance, HR, gender, human rights, environmental protection iyo SDGs markaan isku fiirino yani waxyaalihii labada dhinac ka socday barnaamijyadooda waxa uu moodaa inuu si fiican nooga daadegay aniga ahaan maartay kii Hargeysa lagu qabtay sababaha kalifayna waxa ahayd saaqiyaasay macallimiinta la soo xulay waxa ahayn macallimiin aad iyo aad waxa ay ka hadlayaan si fiican u yaqaan aad baan uga faraxsanahay ka soo qaybgalay wax badan oo nala barayna waxaan rajaynaynaa inaan ku dabaqno shaqooyinkeena dib marka ugu laabano run ahaantii tababarkan halkan aan ku qaadanay waxa ahaayeen kuwa aad u quseeyay dhammaan shaqooyinka warbaahinta daljir ay qabato oo bulshada oo daljir ahaan golis baa noo degsan oo waxa kamid ah arrimaha environmentalka sidoo kale sustainability-ga arrimaha aan xooga saarno genderka ayaa kamid ah human rights oo kale xooga ayaan saarnaa iyo waliba arrimaha ku saabsan waxbarashada runtii tababaradan waxa ahaayeen kuwa aad u qiimo badan oo aan isooran karo dadkii waxa loo soo xushay dadkii khibrad u lahaa waxyaabaha ay taabanayeen runtii marka radio daljir aynu nahay wax badan bay nolosheena iyo shaqadeena ay ka bedeli doontaa muddadan hadda halkan ku guda jiray waxaan qaatay oo isiyeen macadka horumarinta aadamiga 5 days training oo ka bedeli doono businesskayga iyo naftayda labadaba aan uga faa'iideysan doono waxyaabo badan oo hadda ka maqnaa businesskayga ayaa igu soo kordhay aanan uga faa'iideyn doona insha Allah mustaqbalka iyo strategy-gayga dambaba waxaanu ka faa'iidnay maxay ahayd horumarinta financial-ka asaaskii horta waxaan u horeeyay sida asaaska kale oo aan baranay iyo maartay gentle-ka haweenka iyo ragba inay wax wada qabsan karaan oo maartay ay u simeeyeen shaqooyinka tababarkan oo ahaa taageero xirfadeed oo ganacsiyada 19 loo sameeyay ujeedadiisu waxay ahayd inuu ganacsiyada ka taageero inay aad u fahmaan waxna ka bartaan anagu Success Institute ahaan barnaamijyo iyo mashaariic noocan oo kala ah oo kobcinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe waa aragnimadeeda waana diiradeedu waxa ay hayso waxaan dareemaynaa in faa'iido badan uu u leeyahay barnaamijyada noocan oo kale ganacsiyada yaryar iyo kuwa ganacsiyada yaryar ee suuqa cusub iyo kuwa sii jiray ee dhexdhexaadkaba